بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما خميسة أو جمعة أي سوق ليسو تضبط بشة مي سنة لبكن لباتن يلح أو كوباغن لباتنك بشة دول قاعدة سنة كن أفر بغلا فرتن يتضبط تاريخ الهجرية كسو دوادا مركلة إيا برامجكي قبانها قضبط أنيدين كوبها إننا وحا كمدا قرحيو لغا مقلي مغاردا بندر عباس dalka Iran iyadoo dhawaaqiyo iyo waliba dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo hawada Mareyka Hormuz waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladan iyo ciidamada Iran oo war ka soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran oo si cad isna u sheegaya in sida kaliya ee uu ku furmi karo Mareyka Hormuz uu yahay dagaalka la joojiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu wado inuu ka doodo qaraar Mareykanka iyo dalalka khaliijku riixayaan oo lagu dalbanayo in tilaabo la xiriirta xayiraadda Mareyka Hormuz laga qaado Iran dagaalo culus ayaa ka soconaya gobolada Kordofan iyo Niilka Buluuga ee dalka Suudaan ammaanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la adkeeyay haddaba sidee wax u jiraan faahfaahin ayaan idinkaga haynaa amuurtan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda colaadeed ee Xisbullah iyo Israa'iil ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegaynaa sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay ninkan waa ninka shaqada ugu fiican adduunka ka haya Mareyka Gaza haddaba maxay tahay shaqada uu qabtaa oo ah shaqo la qabta tan ugu fiican waxaan idin haynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan xaajigan dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa colaadda waddankaasi Suudaan iyadoo lagu soo waramayo in dagaalkan sanadkii saddexaad galay uu sii xoogaystay maalmihii ugu dambeeyay haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan haddii aynu qoraansanno dagaallo xoogan ayaa mar kale ka qarxay gobolada Niilka Buluuga iyo Kordofan ee dalka Suudaan iyadoo colaadda u dhaxaysa ciidamada dowladda Suudaan iyo kuwa RSF ay sii xoogaysanayso xaaladuna ay sababtay barakac ballaaran oo ku wajahan waqooyiga dalka sida ay sheegayaan ila military oo ay soo xigatay warbaahinta dagaaladan culus ayaa aroornimadii maanta ka qarxay laba deegaan oo ku yaal koonfurta gobolka Niilka Buluuga halkaasi oo la isku adeegsaday madaafiic culus iyo hubka noocyadiisa kala duwan ila wareedyo ayaa waxay sheegeen in dagaaladu ay socdeen saacado badan ugu dambeyntiina ciidamada Suudaan ay dib uga gurteen labada goobood ee lagu dagaalamay gobolka Kordofan koonfureed ciidamada Suudaan ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar xoogan oo ay soo qaadeen ciidamada RSF oo ay taageerayaan xoogaga SPLM-ta waqooyi kuwaasi oo weerarka ka fuliyay duleedka deegaanka Takma ee dhaca bariga magaalada Dilinji ciidanka ayaa sheegay inay dileen dagaalamayaal badan isla markaasna ay gacanta ku dhigeen hub iyo rasaas fara badan kadib dagaalo culus oo la isku adeegsaday hub aad u culus iyo mid dhexdhexaad ah deegaanka Takma ayaa loo arkaa goob istiraatiiji ah maadaama qiyaastii 9 kilomitir oo kaliya ay u jirto magaalada Dilinji isla markaasna ay isku xirto wadooyinka muhiimka ah ee Kartala iyo Habila ciidamada Suudaan waxay doonayaan inay xaqiijiyaan ammaanka wadada sahayda isku xirta Dilinji ka Dukhli iyo gobolada bartamaha Suudaan kadib go'doon socday ku dhawaad 2 sano dhinaca kale gobolka Kordofan waqooyi ciidamada cirka ee Suudaan ayaa duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha droniska waxay ka fuliyeen magaalada Hoy waxaana la sheegay in lagu burburiyay 10 gaari oo dagaal oo ay lahaayeen RSF iyadoo sidoo kale qasaare dhimasho dhaawac la gaarsiiyay ciidamadaasi dagaalka Suudaan oo bilowday 15kii Abriil 2023 ayaa sababay dhimashada 10 kun oo qof iyo barakaca ku dhawaad 13 milyan oo kale وهجاج balmarkana aynu eegna xaggaas iyo magaalada Moscow iyo warka la xiriira ammaanka
madaxweynaha waddankaasi ruushka oo la adkeeyey aqalka kremlinka ee looga arrimayay waddanka ruushka ayaa daboolka ka qaaday in la xoojiyey ammaanka madaxweyne Vladimir Putin isla markaasna la qaaday tillaabooyin dheeraad ah oo lagu xoojinayo amnigiisa iyadoo laga cabsi qabo weerar ay Ukraine ku qaado munaasabadda 9 May oo lagu xusayo guushii midowgii Sofiyeeti ee dagaalkii labaad ee adduunka. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in mar walba la adkeeyo amniga xilliyada munaasabadaha waaweyn balse sanadkan ay jirto qatar argagixiso oo uga imaanaysa Ukraine. Mar waxa laga weydiiyey sida loo adkeeyey ammaanka gaarka ee madaxweyne Putin waxa uu yiri Dmitry Peskov dabcan waa la adkeeyey. Peskov ayaa sidoo kale wuxuu beeniyey warar ay baahiyeen telefishinada gaar ahaan CNN iyo warbaahin kale oo Mareykan ah taasi oo la xiriirta in sababaha loo xoojiyey ammaanka Putin ay tahay cabsi laga qabo afgembi ama isku daydeed. Wuxuu ku jeesjeesay warbaahinta isagoo yiri maxaa la yiraahdaa sirdoonka Yurub annagu ma aqaan waxaas iyo wax la yiraahdo ayuu yiri isagoo si adag u beeniyey warkaasi. Moscow ayaa heegan sare ku jirta iyadoo loo dabaaldegayo maalinta Sabtida maalinta loo yaqaan guusha halkaasi oo Putin uu hogaamin doono dhowratus military oo ka dhici doona fagaaraha guduudan ee loo yaqaano Red Square. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in sanadkan bandhiga la koobi doono sababo amni awgood isla markaasna aan la soo bandhigi doonin taangiyada iyo gantaalada waaweyn. Dhanka furimaha hore ee dagaalka Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisa cirku ay soo rideen maanta 32 diyaaradood oo ku soo wajahna magaalada Moscow kadib markii Isniintii daroon ay ku dhacday dhismo dheer oo ku yaala koonfurta galbeed ee magaalada. Geesta kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in nolosha dadka ay ka muhiimsan tahay dabaaldega isagoo ku eedeeyay Ruushka inuusan aqbalin xabad joojin rasmi ah oo uu soo jeediyey. Wahagaag markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Xisbullah iyo Israa'iil iyadoo dagaalo culus ay soconayaan ayaa ururka Xisbullah ee reer Lubnaan waxay sheegeen in weerar daroon ah ay ku qaadeen ciidamada iyo gaadiidka Israa'iil oo ku sugnaa magaalada Binti Jabel halkaasi oo sidoo kale ay ku beegsadeen taangi nooca Merkavaha ah iyo gaari nooca Nimir ah oo ciidamada lagu daabulo. Kooxdu sidoo kale waxay sheegtay in ay burburisay nidaamka tirsan nidaamyada difaaca ee Iron Dome ee Israa'iil oo yiil agagaarka Jaal al-Calam. Wararka ka imaanaya koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in Israa'iil duqeymo galabta iyo caawa ay ka fulisay magaalooyinka Barashiit, Haruuf, bariga Zuter, galbeedka Zuter iyo sidoo kale Homin al-Faqwa. Duqeymo kale ayaa lagu qaaday magaalooyinka Tuul, Zabqiin, Kafruh. Waxaana sidoo kale la sheegayaa in waxiga magaalada Bat sidoo kale duqeyntu ay ka dhacday. Dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in ay bartilmaameedyo hawada ay beegsadeen kuwaasi oo ahaa diyaarado daroon ah iyo gantaalo laga soo tuuray koonfurta Lubnaan. Israa'iil waxay sheegtay in ay sidoo kale dileen ilaa iyo 20 xubnood oo ka tirsan ururka Xisbullah. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa geesteeda waxay sheegtay in tan iyo 2 bishii March 2727 qof Israa'iil ay ku dishay waddanka Lubnaan halka ay ku dhaawacday 8438 qof. Waxaana la sheegayaa in inkastoo xabajoojin ay jirto haddana Israa'iil inay sii wado weeraro. Wahagaag waxaan u gudbaynaa weerar caaw lagu qaaday deked Iiraan ay leedahay iyo sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah oo ka jawaabay weeraradan. Haddaba xaaladan kacsan ma dagaalkii baa bilowday sidee wax u jiraan? Wararkii ugu dambeeyay amuurtan ayaan idin haynaa. Sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in la horgeeyo qaraar lagu dalbanayo in markaasi tilaabo laga qaado Iiraan. Intaan u gudbin wararkaasi iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina. Waada marka la daawaday wali waxaad socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. Sidoo kale wararka iyo barnaamijyada hagaag sheekada way noo soo socotaa weerarka caawa dhacay laakiin waxaynu aadaynaa markan dhankaas iyo magaalada New York.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa lagu wadaa in markaasi la horgeeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar cusub oo maraykanku soo gudbiyey kaasi oo lagu dalbanayo in iiraan ay joojiso weerarada iyo miinooyinka lagu aasayo marinka hormuus qaraarka ayaa waxaa taageeray baxrayn sacuudi carabiya imaaraadka carabta kuwait iyo qatar qaraarkan cusub ayaa salka ku haya cutubka 7 ee axdiga qaramada midoobay kaas oo oggolaanaya in golaha ammaanka uu ku soo roga cunaqabatayn ama xitaa tilaabo militari uu ka qaadi karo iiraan haddii aynay joojin weerarada iyo hanjabaadaha lagu carqaladaynayo sida hadalka loo dhigay iyo socodka maraakiibta ganacsiga qoraalka ayaa wuxuu cambaaraynaya waxa ugu yeeray jebinta xabad joojinta iyo isku dayada iiraan ee lagu xayirayo ama lagu carqaladaynayo marinka hormuus oo ay ku jiraan miinooyinka badda waxaa kaloo ugu baaqaya iiraan in ay shaaciso goobaha miinooyinka la dhigay isla markaasna ay la shaqayso dadaalada qaramada midoobay ee lagu samaynayo marin bini'aadantinimo si loo fududeeyo gaarsiinta gargaarka iyo badeecadaha muhiimka ah dhinaca kale wasiirka amuuraha dibadda ee waddanka iiraan Cabbaas Caraaqji ayaa sheegay in isu socodka maraakiibta ee marin biyoodka hormuus uu caadi ku soo laaban karo haddii dagaalka si rasmi ah loo soo afjaro isla markaasna la qaado go'doominta badda iyo cunaqabataynta saaran iiraan Caraaqji waxa uu sheegay in qaraarka cusub ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu iska indhatirayo sababta xaaladda hadda ka taagan marinka hormuus waxaana uu ku tilmaamay adeegsiga xoogga iyo weeraradu ay Washington wado ee ka dhanka Iiraan ay yihiin kuwa markaasi mas'uul ay ka yihiin Mareykanka iyo Israa'iil waxa kale oo uu sheegay in beesha caalamku aysan ogolaan doonin in golaha ammaanka loo adeegsado aalad sharciyeynaysa falal uu ku tilmaamay inay yihiin sharci darro wahagaag haddaba aynu eegno war goordhaweyta soo dhacay oo la xiriira qaraxyo laga maqlay magaalada Bandar Cabbaas iyo weliba magaalooyinka dhanka koonfureed ku yaala waddankaasi Iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan haddii aynu eegno warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan ayaa waxay shaacisay in qaraxyo laga maqlay dhowr magaalo oo ku yaala koonfurta waddankaasi wakaaladda wararka Iiraan ee Faris ayaa waxay sheegtay in qaybta ganacsiga ee dekadda Bahmaan ee jasiiradda Khem waxyeel ay soo gaartay kadib duqayn cadow oo lagu qaaday halkaasi telefishinka dawladda ayaa sidoo kale xaqiijiyey in qarax laga maqlay Bahmaan ee ku taal jasiiradda Khem ee koonfurta Iiraan dhinaca kale wakaaladda wararka ee Maahir ee Iiraan laga leeyahay ayaa waxay sheegtay in qaraxyadan laga maqlay sidoo kale magaalada Serik ee gobolka Hormuzgan arrintan waxaa la sheegayaa inay ahayd kadib markii la weeraray markab kuwa shidaalka qaada oo Iiraan ay leedahay kadibna waxaa la sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaguna ay ka jawaabeen weeraradaasi oo markaasi ay weerareen gaadiid xagga cirka iyo kuwa badda oo Mareykanku leeyahay waxaana sidoo kale warbaahinta Iiraan ay sheegaysaa in 2 diyaaradood oo drones ah oo cadi uu leeyahay sida warbaahinta Iiraan ay sheegayso in la soo riday xaaladda ayaa waxay u muuqataa mid cirka ku shareeran waxaana suurtagal ah baa leeyahay arrintan inay horseedi kartaba dagaalku inuu qarxo walow ilaa hadda aysan dhanka Mareykanka war ka soo bixin laakiin dhanka ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa waxay sheegeen in sidoo kale markab doonaya inuu ka gudbo marinka Hormuuz ay u digeen iyagoo markaana sheegaya inaysan aqbali doonin in halkaasi la soo maro xaaladda marka waxay u muuqataa baa leeyahay xaalad halis ah oo si fudud dagaalku ku qarxi karo waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheeko cajiiba nin shaqada la qabta tan ugu fiican ka haya marayka Gaza talo muxuu qabtaa haddaba aynu eegnaa sheekadan cajiibka ah ninkan idiin muuqda waxaa lagu magacaabaa Xaaji Rafaad Jaabir ninkan wuxuu bilaabay in uu dayactiro oo uu hagaajiyo boqolaal kitaabka Quraanka Kariimka oo jeexjeexmay qaxii iyo dagaalkii iyo dhibaatada ka jirta marayka Gaza ninkan wuxuu tagaa masaajidada wuxuuna ka soo ururiyaa kutubta jeexantay iyo kuwa kale
ee dayacan waxaana la sheegay inuu dhistay teendho yar oo ka dhex dhistay dhismaha gurigiisii oo ku burburay marinka Gaza. Jaabir wuxuu si taxadar leh u nadiifiyaa una hagaajiyaa bogagga quraanka kutubta quraanka waxaana markaasi la sheegayaa in tani ay sabab u tahay bacdama duqeymihii Israa'iil ka geysatay marinka Gaza ay burburiyeen 150 masjid iyadoo sidoo kale la sheegayo in waxyeello weyn ay soo gaartay boqolaal kale inkastoo wajahayo qalab yari iyo agab la'aan haddana waxaa Jaabir uu sheegay in inta awoodiisa ah uu farsameeyo oo kitaabta jaldigii iyo qaybaha kala duwan ee kutubta uu nadiifiyo isagoo markaas sheegaya inuu ku faraxsan shaqadan inay tahay shaqada ugu qiimaha badan ee la qabto in aad hagaajisid kitaabka alle qowlkii alle ayaa waxa uu yiri waxay tahay waxa ugu muhiimsan ee aan subax kasta ku soo tooso kuna seexdo shaqo kale ma qabto yiri intaan ayaa waxay tahay buu yiri shaqo waxaan ku faraxsanahay buu yiri kumaniyaal kutub inaan dib u hagaajiyay imika la isticmaalayo ma sha Allah ajar Allah ka sii ninkan shaqo fiican buu qabtay inta ayaan ku soo gabagabeynaa caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah in ka horeysa nabadgelyo